waxaa jira koox dambiilayaal ah oo magaceedu keliya ku filan yahay inuu cabsi geliyo magaaladan. koox aan xuduud lahayn oo gacanta ku haysa waddooyin, xaafado iyo xitaa dowlado la isku hadleeyo amnigooda. waxay caan ku yihiin dilal naxariis darro ah, afduubyo joogto ah iyo ka ganacsiga daroogada caalamka oo dhan. hay-adaha amniga ayaa ku tilmaamay kooxda ugu cabsida badan ee dembiyada abaabulan waa koox aan qaanuun lahayn, waxayna ku suntan yihiin rabshad iyo dilal aan xad lahayn. maxay tahay sirta ka dambaysa kooxdan? sidee ayayna uga soo bilaabmeen xaafado yaryar kuna gaareen inay ka mid noqdaan mid ka mid ah kooxaha ugu cabsida badan caalamka? magacaygu waa cabduuli mucalin maalto, halkanina waa Hogan 24 Media. haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa. haddii ay tahay markii kuugu horraysaa soo booqatay channelkeenna, sabskaraib saar si aad u heshid muuqaalada cusub aan soo gelinno. sheer dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. M13 waxaa lagu aasaasay magaalada Los Angeles ee waddanka Maraykanka bartamihii 1980-meeyadii. wakhtigaas kumanaan qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee El Salvador ayaa kala kulmay waddanka Maraykanka nolol adag oo ka mid ahaayeen faquuq iyo tacadiyo loo geysto. si ay isu difaacaan dhallinyaradaasi waxay samaysteen kooxahaasina markii dambe waxay isu beddeleen urur dambiilayaal ah oo maanta loo yaqaan M13. kadib markii uu Maraykanku bilaabay inuu dib ugu celiyo dhallinyaro badan oo kooxda ka tirsanaa waddankooda, M13 waxay si degdega ugu fiday dalal badan oo bartamaha Ameerika ah sida Honduras, Guatemala iyo El Salvador. halkaasi waxay ku dhiseen nidaam sharci darro ah, waxayna gacanta ku dhigeen xaafado dhan iyagoo ku dhaqma cabsigelin, baad iyo dil joogto ah. kooxdan oo lagu magacaabo Mara Salvatrucha loona soo gaabiyo M13 waxaa lagu gartaa taatuu jirkooda ku faafsan, calaamado faraha gacanta oo qaybna la laabo halka kuwa kalena la taago, iyo nidaam darajo adag oo leh hogaamiyeyaal khatar ah. kooxdani waxay leedahay laamo badan gudaha Maraykanka iyo Latin America, kuwa oo isku xiran islamarkaana ku dhaqma xeer adag oo gudahooda ah. laakiinse maxay sameeyaan kooxdani? kooxda M13 waxay caan ku noqotay ka ganacsiga daroogada caalamka oo dhan, dilal qorshaysan oo naxariis darro ah, afduubyo iyo baad si ay dhaqaalo u helaan, iyo xiriir dhow oo ay la leeyihiin kaartalooyinka Mexico. sidoo kalena waxaa lagu yaqaanaa inaysan ku koobnayn rasaas keliya, balse ay adeegsadaan seefo, faasas iyo habab cabsigelin ah si ay bulshada ugu muujiyaan awooddooda. saamaynta kooxdani waa mid ballaaran. qoysas badan ayaa ku qasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan, carruurta ayaa lagu qasbaa inay ku biiraan si ay u badbaadaan. Maraykanka, FBI-da iyo boolisku waxay ku tilmaameen kooxdani kooxda ugu cabsida badan ee dembiyada abaabulan. dowladaha Maraykanka iyo Latin America waxay qaadeen ololo ballaaran si ay kooxda u burburiyaan. hogaamiyeyaal badan ayaa laga xiray, hanti fara badan ayaana laga qabtay, laakiinse M13 weli way taagan tahay. xitaa marka hogaamiyaha ugu sarreeya lagu xiro xabsiga, waxaa bannaanka jooga xubno kale oo sii wada maamulka iyo dembiyada. M13 maanta waa tusaale cad oo muujinaya sida koox yar oo dhallinyaro qaxooti ah ugu beddelmi karto urur caalami ah oo dunida cabsi geliya. su'aasha weli taaganna waa maalin ma imaan doontaa M13 gebi ahaanba la tirtiri doono, mise waxay sii ahaan doonaan kooxda ugu cabsida badan dunida? haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, sabskaraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaraynaya muuqaalkan. mahadsanid.